maxaa ka socda bariga dhexe dhammaadkii bishii Febraayo sanadkan 2026 xaaladda bariga dhexe waxay gashay marxalad cusub oo aad u khatar badan habeenkii ay ku aadanay taariikhda 28 Febraayo ciidamada Israa'iil oo kaashanaya militariga Mareykanka ayaa qaaday weeraro ballaaran oo cirka ah oo lagu qaaday bartilmaameedyo militari iyo xarumo muhiim ah oo ku yaala gudaha Iiraan weeraradan oo lagu fuliyay diyaarado dagaal gantaalo iyo diyaarado bilaa duuliyaha ayaa lagu beegsaday xarumo militari goobaha la tuhunsan yahay in lagu horumariyo tiknoolajiyadda nukliyeerka iyo xarumo dawladeed iyo guryaha hoggaanka ugu sarreeya Iiraan laakiin jawaabta Iiraan waxa ay noqotay mid si degdeg ah u timid taasi oo ka baxday qiyaastii iyo xisaabaadkii ay sameeyeen Mareykanka iyo Israa'iil maxay tahay sababta dagaalkani u qarxay maxaa dhacay yaa bilaabay weerarka sideese ayuu u saameyn karaa bariga dhexe iyo guud ahaan caalamka soo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaan idin soo bandhigaynaa xaqiiqooyin iyo falanqeyn ku saabsan dagaalkan cusub ee ka socda bariga dhexe haddii aad xiisaynayso inaad fahamto waxa dhabta ah ee ka socda gobolka nala joog ilaa dhammaadka muuqaalkan oo ku soo biir kanaalkeena maxaa dhacay bishii naga tagtay ee Febraayo warbaahinta caalamku waxay shaaciyeen in ciidamada Israa'iil iyo kuwa Mareykanka ay qaadeen weeraro ballaaran oo lagu qaaday saldhigyo militari iyo xarumo dawladeed oo istiraatiiji ah oo ku yaala Iiraan weeraradan ayay warbaahintu soo warisay in lagu dilay hogaamiyayaasha sarsare iyo saraakiisha militari ee ciidanka Iiraan weeraradan waxaa lagu beegsaday hoyga hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatollah Ali Hussein Khamenei kaasi oo lagu dilay weerarkii ugu horeeyay sidoo kale waxaa la dilay sargaalkii hogaaminayay ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ah ee Iiraan Mohammed Bakboor la taliyay amniga qaranka ee Iiraan Ali Shamkhani generaal sare oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ah kaasi oo ahaa madaxa horumarinta hubka Hussein Jabal iyo saraakiil kale oo isugu jiray kuwa militariga iyo kuwa surdoonkaba sababta weeraradan loogu beegsaday hogaamiyayaasha waxaa lagu tilmaamay inay tahay waxa loo yaqaano decapitation strikes taasi oo macnaheedu yahay in la burburiyo hoggaanka militariga si nidaamka amni uu u jahwareero ama uu u dhaco qalqal gebi ahaanba hoggaanka ah taasi oo ay rajeynayeen Mareykanka iyo Israa'iil inay keento ugu dambeyn burburka nidaamka Iiraan oo ay kooxo nidaamka liddi ku qabsadaan xukunka balse taasi ma dhicin waxaase mid lama filaan ku ahayd kooxaha weerarka soo qaaday qaab dhismeedka nidaamka Iiraan oo ahaa mid ka weyn kana sala adag waayitaanka shakhsiyaadka ka mid ka ah nidaamka ama hoggaankooda dagaalkan ayuu Pentagonka Mareykanku ugu magac daray Operation Epic Fury howlgalka carada weyn maye macasha weyn halka Israa'iil ugu magac dartay howlgalka qaylada libaaxa Operation Lion's Roar jawaabtii Iiraan saacado yar gudahood kadib weerarka Iiraan waxay qaaday tallaabo militari oo aad u xooggan Iiraan waxay si toos ah u riday gantaalo balastiga iyo diyaarado bilaa duuliyaha oo lagu beegsaday gudaha Israa'iil iyo sidoo kale saldhigyada ciidamada Mareykanka ee ku yaala bariga dhexe howlgalkan argudashada ayay qayb ka mid ah warbaahinta Iiraan waxay ugu magac dareen Operation True Promise 4 halka dawladda Iiraan ay sheegtay in weerarkan uu yahay jawaab sharci ah oo ay kaga argudanayso duulaankii lagu soo qaaday dalkeeda tani waxay ahayd markii ugu horeysay ee Iiraan si toos ah u weerarto Israa'iil iyo in ka badan 10 dal oo dhaca bariga dhexe kuwaasi uu Mareykanku saldhigyo ciidan ku leeyahay waxaana ka mid ah Qatar, Bahrain, Kuwait, Imaaraadka Carabta, Sacuudiga, Ciraaq, Urdun, Cumaan iyo Qubrus iyadoo aan adeegsan kooxaha ay taageerto sida Xisbullah ama Xuutiyiinta weeraradaas waxaa loo adeegsaday gantaalo casri ah iyo drones ay ka mid yihiin Shahed kuwaasi oo awood u leh inay gaaraan masaafo aad u fog gantaalada Iiraan waxay gaareen meelo dhowr ah oo muhiim ah oo dhaca gudaha dhulka la haysto ee Falastiiniyiinta iyo saldhigyada ciidamada Mareykanka ee bariga dhexe Israa'iil waxay sheegtay inay soo riday inta badan gantaalada lagu soo weeraray iyadoo kaashanaysa nidaamyadeeda difaaca ee hawada balse warbaahinta ayaa soo warinaysa inay jiraan burbur dhimasho iyo dhaawac degdeg ah oo ay geysteen gantaalada Iiraan weerarada dhimashada geystay ayaa ka dhacay bartamaha dhulka la haysto gaar ahaan magaalada Beit Shemesh sidoo kale Iiraan waxay ku beegsatay weeraradeeda xarumaha maamulka Israa'iil sida wasaaradda gaashaandhigga xafiiska ra'iisul wasaaraha xarunta baarlamaanka ee Knessetka iyo xarunta sirdoonka Israa'iil ee Mossad iyo goobo kale oo dhaca caasimadda Tel Aviv Iiraan ayaa sidoo kale si xooggan u beegsatay saldhigyada Mareykanka ee ku yaala bariga dhexe gaar ahaan saldhigyada badda iyo cirka Mareykanka ee ku yaala Bahrain, Qatar, Kuwait, Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta waxaana Mareykanku halkaasi ka soo gaaray geerida ilaa 7 askari waa sida ay sheegteen 6 ku dhimatay gudaha Kuwait iyo 1 askari oo ku dhintay gudaha Sacuudiga Mareykanku wuxuu ku leeyahay dalalkan saldhigyo ballaaran oo ay ku sugan yihiin ciidamo kumanaan kuna Mareykanka ayaana ku leh Bahrain saldhigiisa ciidan badeed ee ugu weyn bariga dhexe halkaasi oo ay yaalaan nidaamyo difaac raadaaro iyo qalab militari halka Mareykanku ku leeyahay saldhigiisa ciidan cireed ee ugu weyn bariga dhexe dalka Qatar
iiraan ayaa ku qaaday weeraro qorshaysan iyadoo adeegsanaysa awood buuxda si ay u duqayso saldhigyadan maadaama dalalkan maraykanku u yaalay nidaam iyo sistamyo difaac kuwaasi oo awood u siinayay maraykanka inuu ka difaaco israa'iil saldhigyadan isagoo sidoo kale bixinayay digniinaha hordhaca ah isagoo adeegsanaya raadaradiisa iiraan ayaase weerartay nidaamyada difaac iyo raadaaradan waxayna burbursay in badan oo ka mid ah nidaamyadan taasi oo ka dhigaysa maamulka israa'iil in dhool aan awood u lahayn inuu garto waxa kaga soo socda dhanka iiraan dalalka khaliijka ayaa ku eedeeyey iiraan inay si ulakac ah u weerarayso goobaha rayidka sida hoteelada iyo garoomada diyaaradaha balse iiraan ayaa sheegtay in ciidamada maraykanka ee kumanaanka ah ee joogay saldhigyadan ay u carareen hoteelada raaxada iyo kuwa ku yaala gudaha garoomada khaliijka sida kuwa ku yaala dubay abu dhabi iyo caasimada baxrayn ee manama waxaana soo muuqatay awoodda dhabta ah ee iiraan iyo inaysan ahayn dowlad la dhaylsan karo waxaana lasoo warinayaa in xisaabaha ay isku dhufsadeen gumaystaha iyo maraykanku inay wax ka khaldameen waxaana halkii maalin kaga baxaysa lacag ku dhow $1 bilyan si ay dagaalkan u sii wadaan isagana difaacaan gantaalada iiraan iyadoo sidaasi tahay ma sii awoodayaan inay qabtaan gantaalada bartilmaameedyada rasmiga u socda ee iiraan kuwa hypersoniga ah oo ah kuwa xawaare sare ku socda in ka yar 6 ama 5 daqiiqana ku taga dhulka la haysto ee Falastiiniyiinta iyo kuwa clusterka oo ah iyaguna kuwa awood u leh inay u kala baxaan madaxyo kala duwan waa hal gantaal oo awood u leh inuu qaado 10 madax oo marka bartilmaameedku uu u dhawaado kala baxaya iiraan ayaa adeegsatay gantaalo casri ah iyo drone sida diyaaradaha isqarxiya ee Shaheed 136 sidoo kale gantaalka Khaybar Shaqaan gantaalka Sinjiil iyo gantaalo kale oo casri ah kuwaasi oo awood u leh inay gaaraan masaafo fog iyagoo si dhaba u haleelaya bartilmaameedkooda waxayna qaadaan madaxyo culayskoodu dhan yahay hal tan maxaa sababay xiisadan waxaa jira dhowr sababood oo waaweyn oo sababay dagaalkan sababta koowaad waa barnaamijka nukliyeerka ee Iiraan iyo barnaamijkeeda gantaalada balastiga ah barnaamijka nukliyeerka ee Iiraan ayay u aragtaa Israa'iil khatar ka dhan jiritaankeeda gumaysi iyadoo sidoo kale ka cabsanaysa in Iiraan noqoto dal isku dheelitiri kara awoodda gobolka haddii uu helo hubkaas sidaas darteed Israa'iil waxay Maraykanka iyo galbeedkaba ku cadaadisay inay weeraraan Iiraan maadaama Maraykanka isaguna uusan doonayn cid yeelata hub nukliyeer oo aan ahayn maamulka Israa'iil wuxuu ku raacay Israa'iil dalabyadeeda weerar ee ka dhanka ah Iiraan taasi ayaa sababtay in weerarkani dhasho si meesha looga saaro cidda iyagu khatarta u arkaan ay ah nidaamkii islaamiga ee Iiraan sababta labaad waa saameynta Iiraan ee bariga dhexe iiraan waxay taageertaa kooxo awood leh oo gobolka ka jira kuwaasi oo wakiilka aadanaheeda gobolka sida ururka Xisbullah oo ka dhisan Lubnaan kooxo madax bannaan oo ka jira Ciraaq iyo ururka Xuutiyiinta ee Yemen taasi oo hoos u dhigtay saameynta Maraykanka iyo xulufadiisa ee gobolka sida Israa'iil sababta saddexaad waa madax bannaanida siyaasadeed ee Iiraan waa dal aan ogoleyn saldhigyo Maraykan ah ama shisheeye faragelin toos ah oo ka dhana madax bannaanidiisa gudaha ah iyo tan dibadda toona tani waa wax Maraykanku u arko halis sababtoo ah Iiraan ma aha dal la maamuli karo la marsan karo ajande iyo dalabyada Maraykanka toona ma aha dal gata hubka Maraykanka sida inta badan Maraykanku uu ka helo dalalka bariga dhexe oo weliba u maamulo dhammaan dalalkaas gaar ahaan kuwa Carabta sidee ayuu caalamku uga falceliyay dagaalkan dalalka reer galbeedka gaar ahaan kuwa Yurub waxay sacad u taageereen weerarka wadajirka ah ee Maraykanka iyo Israa'iil halka Maraykanku isagu yahay bacida dagaalka bilowday isagoo uu fulinay ahdaafta maamulka Israa'iil wadamada bariga dhexe ayaa isku dayay inay dejiyaan xiisada dagaal oo wada hadal ama xabad joojin ugu yaraan la sameeyo maadaama uu ku yeeshay saameyn military iyo mid dhaqaalaba isla marka uu bilowday dagaalkan khatarta dagaalkan oo raaga haddii dagaalkani socdo waxa suuragal ah in qiimaha shidaalka cirka isku sii shareero iyadoo xilligan ba laga dareemayo caalamka sare u kac xoogan oo qiimaha shidaalka ah in dalalka kale ee gobolka ee uu gaaray dagaalka lagu khasbo inay dhinac raacaan oo si rasmi ah dagaalka u galaan taasi oo ah waxa maamulka Israa'iil uu sugayo in dalalka muslimiinta madaxa isla galaan oo iyagu xasuuqaan Israa'iil iyo Maraykankana dagaalka la galaan intaasi waxa sii dheer haddii dagaalku sii socdo wuxuu saameyn doonaa dhaqaalaha caalamka iyo ganacsiga iyo gaabiyahaanba siyaasadda guud ee gobolka sababta ay ah in gobolku uu leeyahay marinada ugu muhiimsan ee shidaalka dunida gunaanad dagaalka u dhaxeeya Maraykanka iyo Israa'iil oo dhinaca ah iyo Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan ayaa hadda galay marxalad aad u khatar badan xiisadan ma aha mid cusub balse waa mid taariikhi ah oo socotay 10 sano su'aasha ugu weyn ee maanta la isweydiin karo waa intee ayuu dagaalkani ku fidi karaa ma Yurub ma Aasiya mise caalamka oo dhan oo wuxuu isu bedeli karaa dagaalkii saddexaad ee adduunka jawaabteedu Allahu a'lam haddii uu sii socdo dagaalkani wuxuu noqon karaa mid ka mid ah dagaalada ugu waaweyn ee bariga dhexe ka dhaca qarnigan fadlan la wadaag muuqaalkan asxaabtaada oo ha iloowin inaad subscribe garayso kanaalka si aad ula socoto wararka iyo warbixinada xiisaha leh mahadsanid